sheeko 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 xariiro. Caruurey, salaamu calaykum. Buuggan waa buugga salaasada ee uu qoray adeer Cabdisalaam Shiino. Sheekadeenna maanta waxaa madax ka ah Habboon. Caruurey, beri hore waxaa jiri jiray gabadh yar oo qurux badan, runtana sheegta, magaceeduna wuxuu ahaa Habboon. Caruurey, Habboon waxay ahayd gabadh yaroo degan oo bashaash ah. Caruurey, Habboon may ahayn gabadh yaroo hooyadeed iyo aabaheed ku qaylisa, manay oohin badnayn. Waxay ahayd inan yaroo mar walba faraxsan. Caruurey, subax ayaa hooyadeed hurdada ka toosisay Habboon si ay iskuulkeedii u aado. Markii ay toostay, Habboon waxay aragtay hooyadeed oo faraxsan oo sariirta dhinac fadhida. Waxay tidhi, Habbooney, subax wanaagsan hooyo macaan. Caruurey, Habboon yar intay soo kacday, hooyadeedna dhunkatay, waxay tidhi, Assalaamu calaykum hooyo, subax wanaagsan oo farxad leh. kadibna caruurey, Habboon suuliga ayay gashay, si fiican ayay u cadayatay, wayna isnadiifisay. Habboon waxay isku diyaarinaysaa inay aado iskuulkeedii. Caruurey, intii aanay bixin, Habboon iyo walaalkeed waxay fadhiisteen miiska cuntada si ay u quraacdaan. Habboon si fiican ayay u quraacatay, caanana way cabtay. Habboon aad ayay caanaha u jeceshahay, waayo Habboon waxay jeceshahay inay xoog yeelato, si dhaqso ahna ay u weynaato oo ay u korto. Caruurey, markii ay quraacdii dhammaysay, Habboon waxay raacday aabaheed oo iskuulka geeyey. Albaabka iskuulka markii ay gaadheen, ayay Habboon dhunkatay aabaheed iyadoo faraxsan, waxayna ku tidhi, Nabadgelyo aabe. Caruurey, Habboon macalimadeedu aad ayay u jeclayd, waayo Habboon fasalka kuma dhex qaylin jirin, mana ku dhex ciyaari jirin. Macalimiinteeda oo dhanna way ixtiraami jirtay. Caruurey, Habboon iskuulkeedu wuxuu lahaa barxad qurux badan oo ardaydu ku ciyaarto. Maalin walba Habboon saaxiibadeed ayay la ciyaari jirtay waqtiga nusa saacaha ee bareega la soo galo. Caruurey, maalin maalimaha ka mid ah, iyadoo Habboon saaxiibadeed la ciyaaraysa, waxay aragtay kubbad yar oo meel gees ah taalla. Kubbaddu waxay ahayd mid qurux badan oo caruurta oo dhammi ay jeclaayeen. Caruurey, Habboon intay kubaddii soo qaaday ayay u geysay macalimadeedii, waxayna ku tidhi, Macallin, kubaddan ayaan barxadda ka helay. Caruurey, macalimadii waxay ku tidhi Habboon, adiga miyaa leh kubadda? Waxay tidhi Habboonna, May macallin, anigu ma lihi. macalimadii ayaa haddana ku tidhi, oo haddaba yaa iska leh? Habboon ayaa ku jawaabtay, Macallin, ma aqaano cidda iska leh, balse waxaan ka soo qaaday meesha aan ku ciyaarna agteeda. Caruurey, macalimadii ayaa iskaabisay oo mar kale ku tidhi Habboon, bal ii sheeg maxaad iigu keentay kubadda oo aad isaga qaadan weyday, sida caruurta kale ay isaga qaataan wixii ay jidka ka helaan. Caruurey, Habboon ayaa iyadoo macalimadeedii u jawaabaysa tidhi, Anaa kuu sheegaya macallin. Marka koowaad, anigu xaq uma lihi inaan qaato alaabta aanan anigu lahayn. Marka labaad, anigu waxaan ahay gabadh muslimad ah. Ilaahayna raali iiga noqon maayo inaan wax hado ama aan iska qaato waxyaabaha ciyaalka kale leeyihiin ee ay ku ciyaarayaan. Maxaa yeelay Allah
wuu ii jeedaa wuuna i maqlayaa meel kasta oo aan joogo. Kamana qarsoona wax aan samaynayno iyo wax aan dhahaynoba. Aniguna ma doonayo in Allah i arko aniga oo wax xadaya ama been sheegaya, maxaa yeelay waan jeclahay Rabbigay. Carruurey, macallimadii ayaa isugu yeertay dhammaan ardaydii iskuulka dhiganaysay. Markii ay ardaydii isku wada yimaadeen ayay macallimadii weydiisay, yaa maanta alaabi ka luntay oo ay ka maqan tahay? Gabar yar oo murugaysan oo indhaheedana iluntu ka daadanayso ayaa gacanta taagtay oo tiri, Macallin, aniga waxa iga lumay kubadaydii, mana garanayo meel ay jirto. Waxay ahayd hadiyad aabbahay ii soo iibiyey. Ma garanayo waxa aan u sheego waalidkay haddii aan kubaddii helin. Carruurey, macallimadii ayaa u tagtay gabadhii yareed ee murugaysneed, ayadoo qalbiga u dejinaysa, ilintana ka tiraysa, waxayna u soo bixisay kubaddeedii yareed ee ka luntay. Waxayna ku tiri, waa tan kubaddii, habboon ayaa kuu soo heshay. Carruurey, macallimadii waxay tiri, ayadoo habboon gacanteeda kor u haysa, gabadhan aad arkaysaan hadda kadib waxaan ugu yeedhaynaa habboon amiin, sababtoo ah waxay barxadda iskuulka ka heshay kubaddaas quruxda badan. Mana aysan qaadan oo may qarsan, balse macallimadeedii ayay u keentay si qofkii lahaa loo siiyo. Carruurey, carruurtii oo dhan ayaa aad ugu farxay waxa ay samaysay habboon. Aad iyo aadna way ugu sacabiyeen, iyagoo wada faraxsan oo ammaanaya una mahadcelinaya habboon. Dadkii iskuulka joogay oo dhan ayaa habboon jeclaaday, waxayna noqotay gabar sharaf iyo maamuus leh. Maalintaa kadibna waxaa loogu yeedhi jiray habboon amiin. Carruurey, buugga dhammaadkiisa habboon waxay ka tagtay dardaaran qurux badan, iyadoo leh, saaxiibadayda carruurta ahow, ruuxii rabaa inuu noqdo wiil ama gabadh Allah inuu jecel yahay, dadka oo dhammina ay jecel yihiin, ha ku dadaalo ammaanada, yuusanna qaadan wax uusan lahayn.